بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتيدا walaalahayga qaaliga ah ee aan ka wada xiriirno bartan aan YouTube-ka ku leeyahay ee Shukri Muuse Talent Channel. mar kale iyo waa walaashin Shukri Degan oo idin sidaa barnaamij cusub. walaalayaal أصحابتيدا qaaliga ah waxaan idin leeyahay nabadinida ee baha ahaato korkiina. waxaan rabaa barnaamijkan cusub inaan uga hadlo. waxaan ku jirnaa aakhirkii bisha Shacbaan, macnaha kala bar way dhaaftay. waxay ku socotaa 10kii dambe ayaa socota. waxa bilaabanaysa haddii ilaahayga awoodda sare leh uu ogolaado intii alla gaarsiiyo bishii barakaysneed ee Ramadaan, bishii khayrka badnayd. ilaahayna aan ka rajaynayno inuu noo dambi dhaafo, nagana aqbalo acmaasha wanaagsan. walaalayaal, xaalad adagna waa lagu jiraa. guud ahaan adduunku xaalad adag uu ku jiraa, gaar ahaan dadkeena Soomaaliyeed xaaladtan adduunka ee adag ugu sii adag ayay ku jiraan. waxaa u wada kulmay cudur iyo nabadoo inkastoo hadda sidii hore la dhaamo iska qaliil ahayd, meelaha qaarna weli iska adag, iyo noloshii oo iska adag, dad badan oo aan shaqo haysan, dad badan oo masaakiina. waxaan rabaa inaan ka hadlo isu gargaarista ummadda iyo sadaqadu inay mar walbaba waajib tahay, laakiin xilligan adag oo kaleeto ay tahay bal inaan hoos isu dhuganno. cidba ciddii ay ka dhaqaalo roon tahay, ka jeeb roon tahay, ka gacan roon tahay, fuqraaga iyo masaakiinta in la istabaruco. Soomaaliyay dhibaatada adag ee dalkeenu soo galay, ee soo maray, ee aan 30 sano ku jirno, waxa kaliya ee aan ku nuuxnuuxsanaynay waxay ahayd taageerada dhexdeena ah. xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed waa ummad isgargaarta. ummadaha caalamka qaarkoodna wax badan ayaan uga duwannahay. waana wax badan oo dhinaca ay Soomaalidu ku fiican tahay in lagu ammaano mudan ay tahay isgargaarka dhexdooda ah. qoysas Soomaaliyeed ayaa ku tiirsan qof ama laba dibadda ugu maqan. qofkaas iyo labadaas dibadda ku maqan ee iyagana naftooda iyo awlaadooda la kacaakufa ayaa laga yaabaa 10 qofood oo Soomaaliya ku nool inay iyaga ku tiirsan tahay noloshooda Ilaahay ka sakow, oo ay wax taraan, oo bil walba wixii ay awoodaan u tuuraan. waa waxa kaliya oo Soomaalidu ku amaanan tahay, oo ka siman tahay, oo aan deegaan gooniya iyo cid gooniya oo ku tilmaameen aynay jirno. magac Soomaaliyeed ay ka siman yihiin. allaylehena waxa kaliya oo Soomaalidu intaan ay ku soo gaartay ay tahay. marka loo fiiriyo nolosha adag, xayaatada adag, dhibaatada badan ee weliba nagu raagtay ee sanad iyo 2 aan ahayn iyo 3 iyo 4 ee 30 sano nagu gaartay ee Soomaalidu ku dhex nooshahay, iyo haddana farxadda ay ku nool yihiin badankood xataa gudaha Soomaaliya. markaa fiiriso 2 arrin ayaa u leh Soomaalida inay sidaas noqoto. tan koowaad waa isgargaarka dhexdooda ah. ilaahayna wuxuu yiri isu naxariista, dhulka isugu naxariista, aan samada idinkaga naxariista. waa inta Soomaalidu ay ku liibaantay oo intaan ku soo gaartay. mid waa taas isu naxariisashada dhexdooda ah, kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda laga soo biilo oo dadkooda gudaha ku nool yahay badankood, oo u naxariista allayleh dadkooda, oo waxaan naftooda ka go'in oo noloshooda iyo awlaadooda iyo naftooda ka qabteen. ma jiro qof wuxuu ka dhargay oo meel dhooban dadkiisa siiya ama dad danyartiisa ku kaalmeeya, maba jiro dibadda. qof walba wuxuu naftiisa ka jaray oo awlaadiisa ka jaray
ayuu dadkiisa gudaha ku noolaa wiil iyo walaal iyo waalid intaba ay isu ahaayeen iyo ehel iyo tol iyo qaraabo ayuu siiyaa. waa qof ka tegay dadka kale ee caalamka ku nool qof intaas awooda. inta badan isuma gargaaraan, way isku ag cunaan. waa inta ilaahay alxamdu shukru rabbil caalamiin calaa nicmati alislaam uu ilaahay noogu gargaaray, oo khaasatan naxariista soomaalida ku jirta alla ugu gargaaray, oo dalkeennii iyo dadkeennii bay intaan kusoo gaareen. midu waa taas, midu waa taas, waana tan ugu weyn oo soomaalida allaha awoodda sare iska leh uu ugu nimceeyey. soomaaliyey hadda waxaa afka nagu haysa bishii barakaysneed ee ramadaan. waa bisha ugu badan ee xataa dunida kale ee muslimka ah ay sadaqaad ka baxsadaan, oy sakaad ka baxsadaan, oy dadka tabarta yar leh fuqraaga iyo masaakiinta ah u gargaaraan. annagoo soomaaliyo intaas isu soo gargaarayne waaba kasii fiican tahayba bishaan inaan badinno is-ogaashaheenna, inaan ehelkii qaraabadii xiriirino, inaan qofka kale wuxuu ka tabaroon yahay uu ku tabaruco. hadda waxaaba noogu darsamay marka cudurka caamka ah ee adduunyadii wada simay garbasimanta loo bixiyey COVID-19, oo dadkii oo dhan diin kasta oy leeyihiin iyo meel walboy ku nool yihiin iyo awood kaste oo shalay la sheegin jiray baabaha ka dhigay, ee dadkii garbasiman ka dhigay, ee waxba kalama roonidiin yiri, ee kii horumar sheeganaya, kii caafimaad heer saraa sheeganaya, kii iska miskiinka ahaa isku si u laaya dadkii. weliba aad moodayso, bal aaba moodaysaba inuu dadkii awoodda sheegan jiray dhaqaale ama caafimaad uu usii daran yahay, aad u dhameeyey, kumanaan ay dhimanayso. maanta ilaahay baan ka magan galnay, kana hoos galnay. dadaalna waa laysfaray, waa inaan dadaalno. dadkeenna masaakiinta ah ee gudaha soomaaliya ku nool, soomaaliya waa in loo gurmadaa. shalay intii la bixin jiray iyo intii ramadaanka uga soo baxa la dhihi jiray, qof walba oo ilaahay u dhiibay oo awoodeeda iska leh, walow hadda daafaha caalamkuba culaysku iska wada jiro, oo shaqooyinkii laga wada fadhiyo, oo qof walbaa gurigiisii isku soo koobay, haddana hiil iyo hoo shalaba waa istaageeraynay wixii aan isku taageeri jirnay iyo wax ka badan maanta laysaga baahan yahay. sadaqadii wadiya geeri furatana ilaahay idinkii way noqonaysaa, waana idin noqonaysaa insha allahu tacaala, wayna noo wada noqonaysaa. soomaaliya aan istaageerno, aan isbarbar istaagno, aan sadaqo baxsanno. sadaqadu waa waxa ugu fiican oo qofka islaamka ah uu baxsado oo noloshiisa wax ka bedeli kara, isagoo nool noloshiisa wax ka bedeli karo, awlaadiisana alla ugu xafidi karo, aakhirana miisaankiisa qiyaamo alla ugu kabaayo biidni illaahi kariim, hadday ku baxda dariiqi toosnaa oon istustus iyo ku jirin riyaa unnaas. biidni illaahi kariim. soomaaliyey waxaan isfarnaaba taageeradii iyo taakuladii aan shalay idinkaga barannay, oon isaga barannay, oo dadka danyartaa idinkaga barteen, in lasii 2 jibaaro, oo lasii 3 jibaaro, oo lasii 4 jibaaro, maadaama xaalad kaloo adag oo cudur ahna dalkii ay ka jirto. adduunkao dhan ay ka jirtaa, laakiin dalkiina ay gaartay. tabarteenna caafimaadna ay iska yar tahay, balse ilaahaa tabartiisu buuran tahay, ballaaran tahay, caafimaadna noo heli kara. isagana waa tawakalaynaa, waana istabarucaynaa insha allahu tacaala. bal soomaaliya ha lays xasuusnaado, dadka masaakiinta ee cudurka iyo wax walbaba isugu tageen ha la xusuusnaado, in intii ilaahay u dhiibay oo awooda ay waxeeda sadaqaysato allaha ku duwo. inaan istaageerno sidaan shalay isu taageeri jirnay ayaan isxusuusinaynaa biidni illaahi kariim. ilaahayna garabkeenna ha galo, isagaa garabkeenna geli kara. xanuunada iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada iyo ciriiriga jira allaha awoodda sare iska leh aan u sheegnay, allaha naga bixiyo, isagaa naga bixin kara.
biidni illaahi kariim biidni illaahi kariim kuwa dalka gudihiisa joogana si allaaley sida isu barbar istaagi karaan hala isu barbar istaago bilaa caleeg ilaahay idankiisa ilaahay ammaanadiisa ballaaran hana geliyo gudo iyo dibad iyo meel walba oo aan ku noolnahay walaalaheenii dhintay ee xanuunadan ku baxay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba oo qaar mansab iyo magac sare ku leh dalkeenna ay ku jireen kuwo kaleeto oo maasha allah tabaarakallah soomaaliyahe badan ee sharaf lehna ay ku jireen islaam kaloo fara badanna uu ku jirayna naxariistiisii janno ee baha ka waraabiyo annagana ilaahay ha noo naxariisto adduuniya aakhiraba beenleyda intii ku hartayna allaha u naxariisto ilaahayna dadka ha noo mara dhaariyo inta xanuunsan ee hadda la ildaranna allaha awoodda sare iska leh ha u gargaaro oo xanuunkooda ha u dhib yareeyo oo kii ay ka kacaan oo alla u yasiro allaha uga dhigo inteenna caafimaadka qabtana rabbiga daa'inka ah ee awoodda sare leh ayaan gacmaha u taaganaynaa allaha noo yasiro yaa rabbi allaha noo yasiro ummadeennana allaha xafido dalkeennana allaha xafido dadkeennana allaha xafido meel walboon joognana allaha nagu nabad yeelo kuwii is ogaada oo say shalay isu ogaanayeen maantana isu ogaada berrina isu ogaada ilaahayna sadaqadoodu uga dhigo tii wad iyo geeri furata allaha naga dhigo aan isu soo duceyno meel walbo aan joogno teeda kale aan iscafino dhammaan cafi iyo masaamax intii aan maxay ahda soomaali weynay dhammaantiinba cafi iyo masaamax aad iga qabtiin idinkana biidnillaahi kariim intii itaqaana aan isi soo cafino intaan aani aqoon hadda ismaba naqaano waxaan iska bi'inayna ma garanaayo intii maalin uuni dhibsatayna cafi iyo masaamax ayaa aniguna aan dhibsadayna cafi iyo masaamax aan leeyahay intii maalin uuni dhibsatay na cafi iyo masaamax ayaan ka dalbanayaa biidnillaahi kariim aan istaageerno aan isbarbar istaagno sadaqadii wadiyo geeri furata allah sadaqooyinkeenna ka dhigo mar walbana meel walbo aan joogno aan isu soo duceyno aanna isbarbar istaagno soomaaliyey waxaan idinkaga tegayaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh